بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن دمان أصحابتا كحيران solarportal.com solarportal Facebook Live يهدو دينا فمرور بوحنا كجرنا رانكا إيو يوتيوب واتكي كرتان solarportal وبرنامج كيني أسبوع لها أها براه بلشدة إيو صومالي دا ومرول با آنكا هذالنا وحيابا أسبوع عن رعي waxyaalaha dhiirigelinta wacyigelinta marka waa siyaasad free zone siyaasad gabihan kama hadalno mar walbana waxaan barnaamijka marti ku ah oo aan iskala shaqeynaa mudane Mahad Cabdulle oo ku sugan magaalada Oslo ee caasimadda wadanka Norway mudane soo dhaw Oslo ka war xaalkeeda ما شاء الله aad baad u mahadsantahay wadaagayaal waa aniga iyo Cabdinaasir magaalada Oslo iyo dalka Norway ba alxamdulillah aad baa loogu nabad qabaa waxaad moodaa inaan sidii soo yara dhaano inkastoo talaalkii hadda noo bilaabmay laakiin marnaba idinka gaarimayno Cabdinaasir oo laakiin sida kale jawiga waxaad moodaa inuu soo dabcay oo imika aanu marayno 8 9 6 oo hawada aad moodaa inay isku bedelayso xagga iyo samarkii aan ku sii durkayno aad baad u mahadsantahay Cabdinaasir magaalada London xaalkeedu aad ayuu fiican yahay talaalkii waa socdaa aniga nasiib waxaan u yeeshay in maanta fariin ay soo direen qolada NHS la yiraahdo National Health Service oo yiraahdeen isniinta soo socota waxaad nasiib u yeelatay in lagu talaalo alxamdulillah jawiga maanta qabow iyo soo noqday magaalada London laakiin sideeda kale magaaladu weli way xiran tahay 8 Maarso ayaa la filayaa iskuulada in la furo kadibna waxa la yiri asbuuc ka dambeeya tartiib ayaa loo furaya waana sii yaraaday waxaa kaloo muhiim ah maanta in dowladda Ingiriiska ay ku dhawaaqday in category ahaan hoos loo soo dhigay isbitaalada dadka ay ka yaraadeen koronihii uu yaraaday ilaa iyo 20 milyan dad ku dhowna wadanka Ingiriiska UK laga talaalay mahad bulshada Soomaaliyeed ee barnaamijkeennii arrimaha bulshada anagu xooga ma saarna markay noqoto siyaasaddan iyo qabyaaladda waalatay soo yaacay waa barnaamij khamiis walba soo gala oo arrimaha bulshada wax yar baan isleenahay ka yara bedela codsigiina ay bulshada soo codsadeen anagoo markaa is oranayna bal heesii hore iyo fanaaniintii hore ku fura usbuuca dambe aniga ayaa noo soo xuli doona idinkuna bartayda ayaad ku soo qori doontaan waxaad u baahan tihiin markaa aan soo gelino inkastoo aan jiilka cusub ka yara u yara kaadin doono jiilkii hore aanu nahay aniga iyo Cabdinaasir inkastoo Cabdinaasir yiraahdo 40 jir baan ahay anigu waan ogolahay inaan 39 jiro intaas waa kaftan bal Cabdinaasir xaqii fanka iyo heesihii adcaawa aan ka codsaday bal maxaad noo soo deysay 5 daqiiqo ugu horeysa oo bulshada soo dhaweynayno soo daa Cabdinaasir mahad aad u mahadsan tahay anigu qaraami heesaha Soomaalida dhaqanka Soomaalida gabayga Soomaalida wax walba aad ayaan u jeclahay fanaaniin aad u fara badan intooda badan runtii waa dad geeriyooday ilaahay u naxariistay laakiin fanka Soomaaliyeed waxay ku reebeen raadraac aad u qurux badan waxaan ka hadlayaa fanka wixii 9 ka horeeyay inta dambe fanaaniin fiican oo dhalinyaro waa jiraan laakiin anigu shaqo kuma lihida ahaan ma ahan waxaan u leeyahay heesii hore caawa asbuuca soo socda ama gabdhihii ama wiilashii Soomaaliyeed heesi jiray adiga inoo soo xulay laakiin asbuucan aniga waxaan soo xulay ilaahay u naxariistay 5 fanaan Soomaaliyeed oo midba mid kale ka sii diran yahay waxa ugu horeeya Muuse Ismaaciil Qalinle oo ku luqeyn doona heestii ubaxoo dilaacay waxa ku xigaya aan isku soo kabnay 5 daqiiqo kaliya ilaahay u naxariistay Umar Dhuule Ahmed Mooge ilaahay u naxariistay Jacayl Maxamed Nuur Greek iyo Umar Nuur Cabdulle shantaas ayaan waxaan ugu talagalay dhammaan asxaabteena daawanaysa waa 5 minutes oo furitaanka ah waxaan filayaa inaad kali doontaan mahad asbuuca soo socdana adiga ayaa laga dalbanaya insha Allah soda thank you si fiican la socdo دودي نفتيداي هوينتان كدورتاي زيد الضيحان نوراي هابنت الهلاعي وغل في ضرورتاي وبحوض لاعي دودي نفتيداي هوينتان كدورتاي
sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalkii daruurtay hohay wallumo hafad baanaho hirbelaacaye hafad baanaho hirbelaacaye hohay wallumo hafad baanaho hirbelaacaye hafad baanaho hirbelaacaye nahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray an kala hobsado nahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray an kala hobsado عندما اقتجعي تدي سباكوت كدادتي وحي اوغو دهي مركي aan dulimi tanduni rabay iyadoo dog jaxjiifto daawanaysa ubaxo iyadoo dog jaxjiifto daawanaysa ubaxo sawraxada macdayo durbaa garayski furaatayo sidayse timi xubnahaaga qoraaniyo qowl baxay la mudiyey xubnahaaga qoraaniyo labadaada qarba qalbigaygu raacay labadaada qarba qalbigaygu raacay socodka laafyaha hagarlii wax qabashada hindiisii faalada uhalceliiska shiikada hanaan socodka laafyaha hagarlii wax qabashada hindiisii faalada uhalceliiska shiikada haddaan caana lagu qabin amman hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodkee haddaan caana lagu qabin amman hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodkee mahad waa maqlaysaa cabdinaasir oo wax laga sheekayn karo maaha waxaan soo xasuustay caawo kale khamiis markay waddankeennii barsamaadkii oo jimcadu ay soo gelayso heesihii hirgalay iyo weliba heesihii nasashada ee sagaalka habeennimo soo geli jiray runtii aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa kolba anigu heesahani waa heesihii aan oran jiray qalbigayda weeyaan aad iyo aad haye ka soco waa gartay cabdinaasir oo bulshada soomaaliyeed ee barnaamijkeennii arrimaha bulshada ayaanu dhexda u galaynaa su'aalo fara badan baanu isweydaarsan doonaa annagu maaha su'aalaheennu waxa weeye waa jawaab iyo su'aalo
dhextaal ah oo annaga naga dhexeeya su-aasha ugu horreysa aniga soo baxaysaa waa cabdinaasir oo waxaanu maqalnaa laandheere ayaanu maqalnaa soomaalida inankaa laandheere weeye ama anigoo laandheere ah kelmaddaas way igu soo noqnoqotaa muddo fara badan weliba 30 sannadood oo cabdinaasir oo ugu dambeeyey bal adigu bal kelmadda laandheere waa sidee horta sidee dadku u haystaan adiguna sideed u taqaanaa bulshadana sidee u taqaanaa soo dhawo cabdinaasir aad ayaad u mahadsan tahay sidaan anigu u aqaana ma ahan sida dadka aqliga leh ay u yaqaanaan ayaan u sheegaynaa adig dadka intooda badan mahad way loonsan yihiin laandheeran caaw baraya dadka asxaabteenana daawanay kuwana daawan doona youtube-kaaga naga daawan doono laandheeraha waa qofka wanaagsan qofka dadka wanaajiya qofka reerkiisa wanaajiya qofka bulshadiisa wanaajiya qofka asaga is wanaajiya qofkan balwada aan lahayn qofka isqurxiya ayaa laandheera ah qofka dadka wanaajiya ayaa laandheera ah marka tusaale ahaan aniga haddaan doonayo inaan laandheero noqdo waxaan samaynayaa jaad ma cunayo sigaar ma cabayo shiisho ma cabayo cunto ma aragtay sokor ku buuxda cuni maayo hilib ka buuxda wixiiba balwada waa iska ilaalinayaa waan isqurxinayaa isqurxiska ma ahana makeup inaad marsid ma ahana noloshaada ugu horreyn la isqurxiyaa kadibna inta kale waa artificial waayo gabar kaa yeelaysa ma jirto iyadoo jaad ah ka soo toostay inaad u tagtido ku agdhowaatid waa la isqurxiyaa waa la cadayda caday ka bacdina bahalkana la isticmaalaa waa taqaana lestrinka la yidhaahdo oo lagu luqluqdaa la isticmaalaa one man show waa la iska ilaaliyaayo waxaa la tagaa maaragtay nin waxaa jira cumar british la yidhahdo saaxiib aana reer UK oo balaayaa jira alaabtan oo kale oo maaragtay hadiyadu igu siiyey saaxiibkay boos caato waxaa la yidhahdaa Chanel allure la yidhaahdo waxaasaa la ismariyaa marka ninkaasaa laandheeraa laakiin qabiil hebel baan ka dhashay reer hebel baan ka dhashay waxba kuu keeni mayso reer hebel adoo ka dhashay oo jaad cuna oo hilib habeen imaan cuna sokor cuna shiisho caba oo aan shaqaysan waxna aadan barnin laandheere matid laandheere waxa ah dadka kategorigaas aan soo sheega maanta waa sidaad sheegtay cabdinaasirow anigu laandheere waxaan u aqaanaa ninka ixtiraama hablaha soomaaliyeed ninka ixtiraama reerkiisa ninka carruurtiisa ixtiraama maaha waxaanu maqalnaa anagu carruurta war indhaha ha igu eegina iga jeeso ama hoos eeg anigu waxaan idhahdaa aabba kor u qaad wejigaaga indhaha iga eeg ay contact afka norwejiga lagu dhahaa eye to eye markaan wada hadlayno inaan is eegno ninkaasaan u aqaanaa anigu laandheere ee afkiisa laga ammaan helayo sheegana waxa marka cabdinaasir haddaan ama khalad iga fahmo ano aan ka fahmo si toosaan u wacaa si toosaan ugu sheegaa inaa cabdinaasir oo malaa xagganaa ka dhaantay taasoo markaa idhaha walle laandheeraa tahay marka anigu laandheere waxaan u aqaanaa mahad ahaan ninka gaar ahaan iska ilaaliyo birmageydada aan hadal xun u quurin wax walba oo lagaga gardaran yahayna dulqaadka badiya ixtiraamka wanaagga sharafta intaasoo dhan waxaa la yidhahdaa waxay bulsho horumar ku gaarto laandheeruna waa ka cabdinaasir mahadow waxyaabaha aan la yaaba asbuucan waxay ahaan gabdho badan ayaa ila soo xiriiray dhanka iyo Facebook oo yidhaahdeen barnaamijka mahad waa odayaashiina waa la dhegaysan karaa xoogaa waxyaala macquula ka hadashaa laakiin waxay yidhahdeen arrin mucjiso nagu noqotay haddaan gabdhaha Soomaaliyeed aan nahay ayaanu doonaynaa inaad ka falanqaysaan oo ah wiil yar baa ku soo codsanaya oo dhoocil ah dhoocil by the way waa adolescent wax la yidhaahdo ma ahan caay maahan dhoocil iyo dhoocil caay ma ahan waa teenage oo kale haddii la fiiriyo marka dadku waxay u malayaan gabar haddii la dhoocil waa inta u dhaxaysa 13 iyo 19 dhoocil ayaa ha wiilkan waa dhoocil marka dhoocil caay ma ahan marka wiil yaroo waxay yidhaahdeen dhoocil ah ayaanu aqbalaynaa Facebookii daqiiqadan ka aqbalnaba camera naga soo wacaya wow kameradu soo qabsanaya dhag ayuu leeyahay markaasuu haddii de qof adiga aadan aqoon kamera kama qaban kartid ma ogtahay aad iyo aad kadib waxaan leenahay walaalow ismaba naqaani maxaa kamera iga soo wacaysa markaasuu caay ayuu nagu keenaa marka ma magaalo joog xuma mise wiilashan waxayba moodaanba gabadhiiba Facebook soo gashay inay fair game ay tahay oo wixii doon lagu samayn karo cabdinaasirow haddaad u fiirsato annaga soomaalideennu iminka dadkii ninkii waxaa nool cabdinaasir ninkii standard 7 uga baxay baa weli nool iskuulkii ugu horreeyey ayaa dhisan ninkii iskuulkii ugu horreeyey galay baa weli nool marka dadkeennu waa oral society waxaan bulshadan cusub ee iminka halkan aan ku wada hadlayno bulshada dadkii ka faa'iidaysanaya ay ka faa'iidaysanayaan turxaan bixintu turxadalka xuni ka reeban yahay dad badan oo akhyaarna laga yaabaa iminka inana daawanayso waxa weeye cabdinaasir qofka markuu ku soo koray jiilkan inuu ixtiraamo
gurigiisa dulqaato garanaya laakiin markay noqotay bulshadii facebookan hadda dadka u haysta keliya in loogu talagalay in la iska shukaansado ama dadka lagu caayo waxa markii ugu horeysay jaamacadaha sidaad ula socotay adaa iga badiya ardaygii sameeyey in jaamacadda ku kulmaan meel ay ku kulmaan ama sidaa ugu kulmaan marka fikradaha la isu wadaarsadaa wax wanaagga la isu wadaarsadaa qofkanu markuu ku soo codsanayo ama anigu aan qof codsanayo waxbaan ku arkay sidoo cuntada uu karanaya ama sidoo uu labisan yahay ama sidoo hadalka wanaagsan uu leeyahay markaasaa idhaahdaa inaan kusoo codsado taa macnaheeda maaha inaan gurigiisii ataago bagekan privateka ah waa gurigaaga oo kale horaad u sheegtay marka inaan gurigaaga kusoo codsado ma kusoo wici karaa walaal muddo kadib laakiin niyo waxaan anigu aaminsanahay anshaxumo ka xun ma jirto qofku codsaday anu waan arkay dadaan sidaa inaan ka aqbalay weliba inama aad sheegayso bum markayba kusoo codsanaya oo teleefon kuu soo diray oo la yaabayso jira maxaa jira waxay ku leeyihin su'aalaan ku weydiinaynaa hadda minute ka hor buu saaxiibtinimada aad ka aqbashay marka weliba siday habluhu sheegayaan cabdinaasir 3 habeennimo ayay wacayaan dadku marka miyayna anshaxum ahayn 3 midnight inaad qof wacdo cabdinaasir aadan garanayn weliba absolutely tan kaloo aan sii raacina waxay tahay rag baa mooda rag oo dhan ma lihi rag baa mooda gabar inay u diraan sawir muus kale ama muuskooda dee muus waxaan ka wada garanaysa ragga muuskooda ma doonayo dad yaryar baa daawanaya inay ka argagaxaan waxyaalaha qaarkood marka tan survey ama wax laga sameeyey dhanka arrimaha bulshada waxay tahay dumarka adduunka Soomaali kaliya maahan adduunka ku nool waxay u nacab yihiin adduunka waxay u nacab yihiin nin alaabtiisa u dira taas oo wax la isku raacay sababtoo ah rag baa moodaya intay online galaan oo ay soo koobi garaystaan niman madow ah bahalkooda ama wax kale ay oranayaan ee gabadh oranayso allah abooy waaba ku jeclaa waa ka helay waa waxay adduunka dumarka u nacab yihiin marka qofkii ma kalsooni uu gabadhi kula sheekaysto oo uu ku soo jiito ilaan gabar aan la soo jiidan karin oo kalsooni iyo kalgacayl aan lagu abuuri karin adduunka ma jirto sababta keenta maxay tahay nin intuu isqaawiyo sawir hoose qaab u dir gabar cabdinaasir waxyaalaha yaab kale waxaa ka mid ah qofkan bulshada halkan unbaad isku barateen oo facebookan ama dee waxaan snapchat wuxuu doonaya ahaado ayaad isku barateen qofka dhaqankiisa ixtiraamkiisa dulqaadkiisa kala dambaysiisa wada hadalkiisa bulshada siduu uu ku yahay ma eegayo wuxuu eegayaa uun joogan ay gabadhani inay snapchat soo gashay ama sawir gashay si kastaba ha u gashay xaqna way u leedahay cabdinaasir ayuu markiiba halkan maskaxda wuxuu gelinayaa sidaan u aragnay in qofkaas uu yahayba waxaad u malaysaaba material meel yaalla oo waxaan la iibsan karo I want to buy you this is what I am laakiin ma oga packageku inuu yahay hadal wanaaga dulqaadka ismaqalka sida aad imika carabawday quruxda aad tahay quruxda maaha tii wejiga nadiifta aad tahay qofkani siduu u cadayday siduu u labisan yahay hadalka qurxooni waa dawo waa qurux marka mar kale haddaan ku celinno waa sidaad sheegayso waa fool xumo احترامنا maaha qof aadan aqoon garanayn waxna idinka dhaxayn inaad sawir meelaha aad ka soo qaaday ama kaagaba haada ku doonayaade atraa iska fiiri waxa ka wanaagsan adigoo wax wanaagsan akhrinayo ku buugsita akhrinaya si wanaagsan u labistay inaad u dirto tiraado marmarka qaar waa galabo quruxda backgroundka iga dambeeya bal eeg sida uu qurux badan tahay qofkaas romantic bum uu soo jiidanaysaa markaa soo kula muuqata hadalkaasi markaa absolutely hadal sax ah waaye rag waxay ilaabeen horta romance waqti badan ayaan dhalinyarada isku daynay odayaasha inaan barno laakiin romance waxay moodeen gabar Facebook aad ka baratay oo aad tiraahdid dirac kugu dhegan iyo goona kugu dhegan iyo soo dir dumarku aad bay u nacab yihiin laakiin gabadha adduunka ugu adag gabdhaha adduunka ugu adag waa kuwa la soo jiidan karo haddii dumarku waxay jecel yihiin jawi wanaagsan bay jecel yihiin dumarku waxay jecel yihiin haasaa way jecel yihiin in non sexual material looga sheekeeyo waayo gabar hadda telefoon kaa aqbashay oo aad tiraahdid videoga hoos u sii leexi ama bishimahaga igu soo dhawee ama dhegtaada igu soo dhawee gabadh way kaa fiigaysaa gabadh waxay rabtaa inaad uga sheekaysid balaayo oo dhan dalxiis uga sheekaysid gacmeed uga sheekaysid waxay xiisayso waxa la weydiiyo wuxuu xiisayo laakiin sheekada hadday ka bilowdo abay sawir ii gooni ah wax la yiraahdaa soo baxay maad oo aniga ii qaasay macnaheedu waxay tahay sawir bilaaya waa ka gudbaya waxaan rabaa sawirada dadka qarsada Facebook ee atoryaasha hindiga soo gala isla markaana 200 oo Facebook samaysta danta ay ka leeyihiin ay isu qarinayaan oo same time ay doonayaan social media inay soo galaan dad ku caayaan oo ay doonayaan inayna ku sii socdaan isla markaana iska dhigaan anonymous ama isqariyaan maxay tahay maanta
cabdinaasirow adaan kugu soo celin doonaa laakiin aniga 3 qofood ma aqbalo follow xataa kama aqbalo iska daa inay aniga maaragtay friend ila noqdaan waxaa ka mid ah nin la baxay magaciisa inuu ka tagay la baxay abu iyo ummu iyo ukhtu kuwa la baxa horta ma aqbalo kan geed soo samaysa gabadha Soomaaliya quruxda Somaliland quruxda Puntland quruxda galbeed whatever it is kuwana ma aqbalo wiil iyo gabarba ama wiilka sare waxaan la aqbalin nin actor hadduu soo dhigto Xasan Aadan Samatar oo ku faanayo oranayo Xasan Aadan Samatar ayaa role model yes waxbaad markaa laakiin actor Hindiya oo la garanayn meel uu ka socdo ama Turkiya oo markaa waliba kuwani aan ahayn kuwan imika meelahan laga soo qaatay xataa muu daawana Google-ka umbu Hindi actor ku qoray oo ka soo qaatay sidaad la socoto adaaba marar badanna ka wada hadalnay Cabdinaasirow 20 account bay leeyihiin 20 qof bay ku caynayaan 20 jahadood bay leeyihiin dadka horta anigu ma aqbalo adiguna waxaan filayaa baltaana adiga nooga si indha doloolaha ama nooga gudaha si jira bal u fasir dadka qaar 20 account la caydooda iyo sawirradooda Hindiga khaatiyaan laga taagan yahay Cabdinaasir bahdow horta IT in yar baan ka aqaanasaad ogtahay waana si daba raaca especially social media dhankeeda social media hadii Facebook kaliya ma ahane waa nooc walba Instagram Twitter wax walba dadka isticmaala iska soo gala waxaysan ogeyn inay unique number leeyna IP address la yiraahdo oo marar badan aan ka hadlay internet protocol la yiraahdo isla markaana qofka dhowr account ku samaysla isla iPhone ama Android ka Samsung ama hal laptop ka soo gala wuxuu ka tegayaa astaamo ka tegayaa astaamaha oo aniga maanta hadii comment ka bixisid dhowr meelood oo qof kala duwan mahad jaamac hebel caasha la baxdid oo aad ka soo gashid isla iPhone-ki ama isla ka soo gashid laptop-ki waan ku ogaanay meesha joogtid Oslo IP address-ka location-ka dadka ma ogeyn tooda badan markaa trace uu leeyahay hadii reverse lagu sameeyo lagu soo ogaan karo laakiin muhiimadu waxay marka waxaad leedahay Cabdinaasir oo mahad Cabdulle 20 account la IP-ga mahad internet-kan halkan iigu jira on afar halkan waxa yaala mobile halkan mobile kale inta haddaan ka soo galo iyo computer-kan oo marka IBM gurigan aan isticmaalayo waa la ogaanayaa baad leedahay sumaha marka absolutely waxa lagu ogaanayaa wali si fudud ayaa lagu ogaanayaa sababtoo qofka waxaan international protocol-kan oo IP-gan sida booliiska marka dadkan pedophile-ka ilmaha dhibaateeya online-ka ay ku soo helaan dadka bangiyada dhac ku soo helaan telefonkaaga IP-ga ku xiran IP-ga waxa ku xiran trace wax la yiraahdaa jira oo hadii la baaro oo forensic lagu sameeyo ku soo qabanayo waxyaalaha aan la yaabo qof ayaa wuxuu soo galayaa meel uu isqarinaya qof kaloo caynaya oo madax for example ama ka soo waan isqarinaya hadii la sii raaco qofkii waxaad arkaysaa qof la yaqaano caan oo weyn ayaad arkaysaa aad isku xishoonay marka tan kalena waxa keenaysa self confidence male kalsoonidu waa muhiim anigu haddaan doon inaan ku dhibaateeyo ku caayo anoo Cabdinaasir aan soo istaagaya mahad waxaan leeyahay sidii waagi hore aan naqaanay bacaad baan ku siinay titinka kugu tuuraya aan isdagaalno laakiin qofba intuu soo galo siyaasad ahaan kaaga duwanaado ama kaaga duwanaado qabiil ahaan ku naco ama ha ku naco si kale ama ha ka hinaaso ila dad badan waxa jira ma taqaanaa haday xataa ku arkaan adoo koob shaahi cabaaya ka hinaasay somehow aan cabi kara I don't know why dadkaas ayaa samaysa qof 10 account sameeyay hadaad aragtid oo isqarinaya sawirkiisan u saarneen waa qof subaxdii ku soo toosa sida wax u dhibaataysa habeen ku soo toosa laakiin asaas dhibaateynay sababtoo nolol wuxuu ku nool yahay oo fresh aan ahayn qol yar ayuu ku jira kama soo bax waa dhibaataysan banaankana ma aadi karo waan ka gudbayaa waxaan Cabdinaasirow u gudbayaa qurba joogta wadanka waqti badan dalka ka maqnaa ma ka caqli iyo karti badan yihiin Soomaalida wadanka ku nool ama aan meelna uga tagin wadanka يعني markaad isbarbar dhigto waxaad u bixisay baan filayaa Cabdinaasir marar badan baan arkay qorax joog iyo aad marka miyay ka caqli badan yihiin mise bal xaaladda noo fasir waa sidee miyay waxay ka caqli badannahay iyaga dad ayaa hadda waxay aaminsan yihiin mahad aan kula hadlayo maanta qurbaha hadday 5 sano soo joogaan ama Norway ama Ingiriiska baasaboorka ay soo helaan intay soo qaataan jeebka saan u soo gashtaan ay xamar ka soo degaan ama Hargeysa ama Boosaaso ama Garowe Soomaali meel aad ka soo degaan saan u soo saaraan in dibadda yar ay ka yimaadeen qualification-koodu uu yahay in shaqo lagu siiyo in balaayo iska dhigo in uu yiraahdo dixsigan muxuu ahaa 5 sano ka maqnaa wadankii marka qofka bani aadamka markuu isbido ani hadda intan hal sano ku noolaa Soomaali hadda waqtigii aan imid hadda aan ku soo laabtay waxyaabaha aan ku soo arkay waxaan dhalinyaro aad u fara badan
professional ah jaamacada Soomaaliya kaga baxay meelna aan ka aadin maanta waxay ka nolol iyo ilbaxnimo fiican yihiin boqolkiiba boqol dadkan qurbaha jooga by the way qurbaha lagu sheegay hibil qurba joog definitionkiina waa lumay waxyaalaha aan la yaabay aniga 30 sano ka hor waxaan joogay waddanka Talyaaniga waaga hadaadan shaqaynin oo gaajo lagu dhimanayo meel lagu noolaanay ahayn Soomaali gaajo laguma dhigtaan abaar dhicin reerka ina adeerka saaxiibka Talyaaniga waagaas aan ogaa ayaa dad hadda nasiib waxay u heleen inay dooma soo raacaan oo magafa ay soo maraan oo Jarmal ay tagaan oo Talyaaniga ay tagaan ayaa marka dambe waxa uu leeyahay heblow oo qurba jooga aniga qof uma arko dhowr sano intuu Talyaaniga imaaday oo gaajo meesha ku taxta shaqo aan haysan sharci aan haysan inuu qurba joog yahay uu markuu xamar u yimaado uu ka fiican yahay wiilashii gabdhaha Soomaali ku dhashay ku noolaa waayo nolol fiican bay haysaa ragga qaarkood apartment ay degan yihiin reerkooda noloshooda waxay noqdeen middle class Soomaali ay noqdeen iyaga ayaa aaminsan waayo mahad waxa taqaanaa Oslo ku nool London ku nool aniga Toronto aan ku arkay Mareykan aan ku arkay Melbourne Soomaali joogto dad waxaan ku arkay noloshooda qofka Soomaali qofka kale kama liito laakiin noloshooda ay ku xiran dad waxaad arkaysaa maanta koob shaahi aan iska dhiibi karin iyagoo Toronto iyo London iyo Oslo ku nool dad waxaad arkaysaa income-kooda uu yahay weegii $500,000 ay ku soo gashay Soomaali marka iyaga aaminsan by the way baasaboorkan oo casaanka ah adigu waa lagu siiyay waa waraaq ma ahan dadka inaad ka fiican tahay ama ka baraysan tahay maan iyaga ayaa ismooda laakiin sheekadu sidaan ma aha cabdinaasirow waxaan hargeysa ku arkay meel baanu furnay beri 2015 la yiraahdo Mother Wonderland marka waa caruurta ayaa lagu ciyaarsiiyaa oo qalabkan caruurta ku ciyaaraan waa indoosh marka waxa fadhiya inan hooyo iyo aabe ma sha Allah oo maaragtay marka psychologically waxa aniga maskaxdayda yar ee daciifka iga dhaadhacday inay qurbaha ka yimaadeen markaan caruurtii baa u ciyaaraysa halkan ay garabka is haystaan wax buugaag bay haystaan markaasaan weydiiyaan waddankeed ka timaadeen waxay ugu yiraahdeen habeenna kamaan bixin gabadhu dahabshiil bay u shaqaysaa $600 bay ka qaadataa wiilkuna infrastructure company dhismaha ah isna ilaa $900 buu ka qaataa guri bay iibsadeen marka interest man war xaafadoodii baan tagay cabdinaasirow gurigan yareen hadda deganahay waxa yaala rafka ah waan xishooday anigu nafteedaan u xishooday waayo inta ay haystaan cashuurna lama bixiyo waddanku waad ogtahay siduu u jaban yahay $300 bay cunto ku cunaan nolol macaan bay ku nool yihiin nasteexada la sheegayo waddankoodina waa joogaan oo ka sii muhiimsan waddankoodina waa joogaan baabuur bay wataan stable bay ku leeyihiin waxaan kaloo la kulmay nin la yiraahdo Cabdikariin Mooge ina Axmed Mooga dhalaan u falaynaa Maxamed Mooge Cabdikariin si fiican baan u aqaanaa gentleman Cabdikariin baan la kulmay oo buug inuu haysto caruurtiisa halkan ciyaarsanaya quruxda lagu sheegay tilmaamaysana ka muuqatay marka isna maan aqoonin waxaan ku iri xageed ka timid Europe markaasuu yiri adar habeenna kamaan bixin halkan he is a beautiful gentleman ma garanaysaa marka dadkaasa jooga waxa jooga gabayaa waxa jooga dad hal abuura waxa jooga inankan gaabsha mana yaabsha ee qora buugaagta ee gabayaada ah dhakhtar 6 sanadoodna dhakhtar noqday imikana gabayaada qora ayaa jooga intaa in la midna xamar bay joogaan sidaad adbood soo aragto igaga khabiirsan dadku marnaba maskaxda iyo gelinin mahad Cabdullaahi Cabdinaasir oo halkan oo laba kalmadood meesha ka sheego qurbaha joogo baasaboor riwaayada sita idinka ka qurux badan ka haybad badan ka sharaf badan dad badan oo ixtiraam way degayn halkan waxba ka sheegi mayno laakiin ogaada nin qurbaha ka yimid sidoo walaalkay Cabdinaasir yiri 5 sanadood joogay gaarib Mercedes ama isku soo sawiray Bosch gadaala waxba kama jiraan baabuur malihi anigu mahad Cabdulle malihi halkan aan ka cadin weyn ogeyn reer Oslo tareenkaasaan raaca 5 subaxnimaan galaa bas baan raaca waa lugeeyaa maalintaad Cabdinaasir oo timaado oo balansanahay bas baan ka soo saarayaa magaalada airportka bas baan xaafadayda kugu keenaya waan lugeynaynaa sidaas dadka Norway-guna 80% way lugeeyaan basaskaas ay raacaan cid gaar ah haysataa ma jiro yaanan markaa been leedii sheegin soo dhaw Cabdinaasir waxaan sii raacinayaa Cabdikariin Axmed Mooge horta waxaan ku bartay oon hal habeenaya waxaan isku aragnay Hargeysa 4 sano 5 sano ka hor aan filay inay tahay meesha la yiraahdo summer time aan isku baranay meeshaas kuna cabaar aan ku sheekaysanay kadibna waxaan friend ku noqonay Facebook runtii qof waxaan u arkay hadda ka hor Facebook aan ku soo qoray qof ma aragtay definition-ka oo gentleman-ka Soomaali gentleman aad ugu yartay waayo definition gentleman-ku wuxuu noqonayaa qof degan aqyaara afgaaban
isla markaana hadalka keliya ma ahan miisaaman yahay hadalka munaafiqiinta waxa ka mid ah qofku inuu yidhaahdo waxaas baan samaynayaa laakiin wejigiisa kuma qorna laakiin hadalka ka soo baxaya in Axmed Mooge afkiisa iyo waxa uurkiisa ku jira waa isku mid waa shakhsi runtii aniga aan aad ula dhacay oo marar badan commentan ka bixiyay qaabku u wadwaana nin potential leader noqonaya sababtoo asaamihii leaderka oo dhan uu leeyahay secondly wuxuu leeyahay wax Soomaalidu ay kaga duwan yahay oo ah principal person qofka principalkiisa markuu yahay aanu doonaynin kaliya inuu xukun waxaas qabsado marka waa nin runtii ay soo xisay oo ammaanan aadna u ammaanan waan ka gudbayaa taa macnaheeduna maaha inaan halkan maadaama siyaasad iyo wax lagu jiro oo ku jiro campaign ku jiro inaan halkan anagu ka xayeysiinino laakiin tusaale Cabdullaah tusaale u soo qaatay soo dhaw Cabdullaah maba ku jirin waa runta waxa la yiri qofka inaad ogaatid hadii aad rabtid facebookiisa la aadaa anigu waxaan iraahdaa hadda ka hor aan soo qoro waxaan iri hebel qabiilkiisa haddaan rabo inaan ogaado cidba ma weydiiyo anoon qabiilna shaqo ku lahayn aan interest aan ku ahaynoo weligayna waxna ii samayn hadda aan leeyahay waxna ii qaban doonin aan shaqana aan ku lahayn qofka markaan doonin qabiilkiisa wallkiisa facebook aan aadaa coverkaan fiiriya coverka haddaan ka waayo profilkiisa aan fiiriya haddii aan ka waayo inta sawir uu soo geliyey haddaan ka waayo intuu comment ka bixiyey oo difaacay xataa haddii ina adeerkiisa Hitler ama Mussolini uu yahay wuu soo gelaya wuxuu leeyahay haddii wax laga sheego wuxuu leeyahay Mussolini wuxuu ahaa nin laandheero oo gob uu leeyahay marka ma hado xataa haddii dadka shirkadaha qaarkood shaqo ay ku siinayaan hadda waxaa la yiri CV uma baahna waxay aadayaan facebookaas ay aadayaan wax walba ay akhlaaqdaada wax qabadkaaga wanaagaaga intay ka eegayaan arrintaas bal ka war Cabdullaah waxaan rod yivir afka Norwegiga waxa lagu yiraahdaa talasiin ama advisor oo ahaa mar si dadban dahabshiil oo markaa Norway kadibna odayga markuu noo yimid ilaahay khayr ha siiye Maxamed Saciid aan filaya kadibna aan Hargeysa aan ku kulannay markaa waxaan u ahaa advisor shaqaalaha la qoranayo ayaan eegi jiray markaa waxaan la yaabay waxay eegayaan marnaba qabiil iyo waxa taay meesha ka joodid ma ixtiraamayaan waxay ixtiraamayaan inaad sigaar cabtid inaad 4 galabnimo soo noqon kartid waxa lagu fasaxayaa 2 saacadood marka dadka shirkadaha kambaniyadu waa sida sheegtay waxaan ku iri xageed wax ka bartaan hadalku yiri afkaygaad ka xaday facebookoodan eegnaa halka akhlaaqdooda halkaasay ka dhacantaa mid kale Cabdinaasir qabiilku ma xuma qofku inuu qabiil haduu laakiin qabiyaalad ayaa xun bal qabiilku haduu iminku sheegto intuu division ma laha kalmadii baa iga khaldan ma laha xad ma laha qabiilku saan ula socono markaad maanta isku reertiin aniga adiga laandheerihi aan sheeganaynay mid kale oo ii dhow halowna group baa loo baxaya group WhatsApp baa jiray meel ban si indirect ma garanay waxay ku soo dareen kaga jiray waxaan arkay iyadoo la iga saaro meel kale hoosii leeyay haddana hoosii leeyay marka malaha meel uu ku socdo weligeena kama hadlin weligeena ma eegin qabiilkuna dhib ma laha hadii qof la yiraahdo war Cabdinaasir oo maanta anaga isku salayneen baa xanuunsan kana waxaan iskugu darnay wax dhiba ma laha laakiin taxun waxa weeye marka tilmaamayso anagoo reer hebel iska waan iska celinaayo marka akhlaaqdiisii ixtiraamkiisina aad facebooka ka dheehanaysid waad saad tiri Cabdinaasir soo dhawo aad u mahadsan tahay mahad asxaabta qiimaha iyo qaayaha leh waa barnaamijkeeni arrimaha bulshada iyo baraha bulshada ee asbuucla ah mahad Cabdulle saaxiibkay oo ku sugan waddanka Norway magaalada Oslo iyo anigoo jooga caasimadda waddanka UK magaalada London barnaamijka si qaybiya weli nus saac ayaana horta waxyaabo badan ayaan ka hadli doonaa mahad kulli waxaan filayaa safar badan waan isla galnay meelo badan waan isku aragnay reer magaalnimo haddii la eegana adayga reer magaalsano igana safar badan maxay tahay arrintan dadku ay yiraahdaan horta waa jiri jirtay oo aniga waxa igu dambeysay bishii haddaan xasuusto May 2017 ay ugu dambeysay markaasoo waxaa jirtay dhowr bilood aan Facebook aan ka shaqeeyay xafiiskiisa London aan ka shaqeeyay oo la ii sheegay oo markaas ay ugu dambeysay waana astaamaha markii dambe aan ogaanay oo reer miyinimaday ka mid tahay oo gabi ahaan bari waan joojiyey kaasoo ah waxaa dhacday markii ugu dambeysay waxay ahayd Toronto diyaarad ka soo raacay transitan waxaan ku ahaa magaalada London haddana waxaan ka duulay London ilaa Shanghai oo adiga aad u taqaanid waa flight aad u dhow dadka maxaa keenay inay yiraahdaan flying from Oslo to London ducada waa halkiini markii ay gaarto qofku ka soo degana London uu yiraahdo ducadiina waa la aqbalay kadibna markuu ka tago wuxuu leeyahay iminkan hotelkan u socdaa ducada waa halkiini
kadibna hotelkii markuu taga dharkayaan iska bixiyay ducadu waa halkiini ducadiina waa la aqbalay dharkaan iska bixiyay kadibna uu yidhaahda suuligaan gelaya ducadu waa halkiini qofkii noloshiisii oo dhan wuu sheegay kafee meeshuu ka cabayo meeshuu suuli ka gelayo meeshuu ku tukanayo meeshuu marayo maxay tahay ilbaxnimadan cusub mahdo cabdinaasir oo iminka sidaad mar kale haddaan kugu soo celiyo dadku iminka adduunku ama waddanka Norway baan tusaale ku siinayaa Norway iminka maba baartaba usbuucii hore waxaanu ku soo qaadanaa tiri kelmad maxaad isku kashiftaan oo isku moogtahay waa run marka inaan kelmadda maanan ka jawaabin laakiin iminkan si degdega minute inkay uga jawaabaya waa annaga iyo Canada badanaana waxay u badan yihiin dadka dad Soomaaliyeed dad iminka kelmad baa tiri oo qabyaalad iyo qabiil baa tiri reer ama qabiil oo markuu qabyaaladu inuu ka xumaato iyagu dhexdoodii isa sii kala saaraya ama for example inan baa waxay oranaysaa diracan caawa aroos baan ku tegayaa la soco markaasay saaxiibteed isku tolka ahaayeen diricii ay aroos ku tegi lahayd bay soo qaadatay xanaaqa yaraysa ma taqaanin anaa ka baday qarxis waa la qarxiyaa la yiraahdaa anaa maqlay cabdinaasir oo intaa yar ayaa waxay ku dhacday in UDI-da la waco la yiraahdo hebla adin waxa magacaabayna Djibouti bay ka timid badanaana dadka inta badan u badan ee dhibaatada taagan oo doctor Mahad Habib oo la socota aadiya adeerkii runta ahaa way ninkan ka shifay oo sheegay waxba qaran mayno dad fara badan oo ka soo jeeda halka iyo Canada marka ku socon maayo laakiin badanaa waxaad ogaataa dhibta ugu weyn waxa weeye ninka Soomaaliga ah walaalka haddaad is afgaran weydaan inta xurmadu ha kugu ekaato moobilkana cas iyo moobilkana madow ha noqoto kaliya laakiin haddaad dhaafto tiraahdo dacwaan ku geynaya ama meelaad lacag ka qaadatay baan dacwoonayaa run inay Canada iyo Norwayna ugu badan tahay arrintaana waan ka raali gelinaynaa UK ku jirta waa alxaasid la yaqlaa xaasid waa in la sheego kuwaas xaasidiinta idinku hal mid baan idin gelinayaa barnaamijka dab oo sidaad annagaba noo duqaysaan doonayaa markan inaan adiga ku duqeeyo ka jawaabtid laakiin bal sii wad halka ka sii wad barnaamijkan horta waa jirta arrimahan aad ka sheegtay waxay tahay dadka waa envy waxaa la yiraahdaa waa xaasidnimada iyo masayrka ama hinaasaha ama jalasiga markuu israaco qof ayaa maanta wuxuu ka raadinayaa waxa la yiraahdo Talyaanigu yiraahdo punto debolo masayrkuna wuu jiraa dambi wax dhibana ma laha ha weakness uu ka raadinaya weakness kaaga hadduu kaa waayo de qof shaqaysta wax bartay adduunka iska mar wuxuu doono dad ayaa maanta dadku waxaan ku waaniyaan yiraahdaa safaradina sheegina oo dadka flying waxna sheegina sababtoo ah adigoo Mombasa ama Zanzibar ama New York ku baashaalay sawir soo gelinaya ayaa qof gurigiisa jooga waxba aan samaynin hilib iyo bariis iyo baasta maalin walba cuno qolka aan ka soo bixin oo ku rafaadsan ayaa jealousy oo xaasidnimada iyo masayrka iyo intuu isku raacay wuxuu leeyahay qofkan muxuu samayn jiray waxa laga qofka xataa inuu walaalka yahay ku yaqaano wuxuu wacayaa qolada caydho wacay wuxuu leeyahay ninkii Cabdinaasir ah waxaan u jeedaa New York diyaarad ka raacay oo hotel 5 star degan marka qofkaas wax oo noloshiisa aad ku saameysay ma jiraan waa xaasidnimo iyo jealousy marka hadiiba aad tahay qof ceer ku nool ah gurin laga bixiyo rafaad aad ku nooshahay aniga in a way rafaadaan u arka kuwaas oo kale sababtoo ah ceerta waxa loogu talagalay first 1 year 2 year in qof walba uu ku digo marka dambe laakiin haddii 30 sano ka dhigay dib ayaa ku haysta haddii situationka ku jirtid ma hadow waxa fiican meesha tagtay meesha ka degtay meesha ka duushay meesha ku nooshay in la ogaano sababtoo ah qof walba adiga kuma jeclo qof walba kuma taageero xaasid ayaa ummadii ka dhex buuxa Cabdinaasir ma xasuusataa 2017 gabar reer Suudan ahayd oo Ingiriiska ka dhiibnayd oo Chelsea area guri laga siiyay oo gurigii inay kireysay meel kala degtay joornaalka ku qoraya wax la qaranayna ma hadee meel walba Nairobi guri ka iibsatay Nairobi guri ka iibsatay wax la qaranayna ma waa live Cabdinaasir 2015kii diyaarad baan ka soo raacay London anoo markaa hooyo ilaahay cimrigeeda noo dheereeyo hooyada ayaan soo booqanay markaan waxa rabaa dadweynaha ilaa la taliya Cabdinaasir airportka markaan nimid ba gabadha Soomaali waa Soomaalida waa taqaan Soomaaliduna waa isku qalbi wanaagsan oo salaamayaan assalaamu calaykum wa calaykum assalaam inta marka Sweden baan deganahay laba passport baan leeyahay bay igu salaamtay Cabdinaasir marka waan nahay waxaan ku iray miyaanan ogeyn inaan ma noqon kartaa inaan booliis ahay markaas sidii Soomaaliya tahay wax in wax ku sheego inaan wax dhiba male waxa iiga sheekaysay top
inay halkan degan tahay Chelsea guriga ay ku leedahay meel kale oo Tottenham area-na ay ka dhiiban tahay Sweden marka adiga maxaad isku habeen weyday moogtahay marka waxaan ka wadaa war waxaad sheegaysid iyo waxaad adigu samaysanayso ha ku gooni ahaato qof aadan aqoon strange people oo kula kulantay airport inaad sirtaadoo dhan tareen baan soo raacay laba gabdhood sidaa markay u fariisteen halkaa ma iska siiyeen Cabdinaasirow 3 cisho kadib waa saaxiib walaashayda qaaliga ahayd saaxiibteeda wax walbay u sheegtay way kadib way iska shifeen iyagii baa isdawada dacweeyay well of course waxaan keenay maaha waxaaga cidnaha u sheegina qarso qof aadan hubin aadan garanaynin la sheekayso ixtiraam dulqaad wanaag laakiin keep it your secret in adiga cidnaha la wadaagna haddii kale arrintaas hadal wuxuu ammaan yahay intaadan ka soo bixin arrintaas horta scandal weyn ay ahayd oo meesha ka dhacday warbaahinta ku jirta maahan qof in lagu fadeexinayo in kale horta sharciga reason ayaa loo sameeyay sabab ayaa loo sameeyay haddaan ka hadalno oo wadamada aan joogno marka haddii sharciga kugu yimaado marna ma oran maysid dowladda Norway waa cunsuriyiin ama Ingiriiska iyo of course cunsuri waa jooga laakiin siyaasadda cunsuri waa wadan dimuqraadi ah moogtahay marka haddii 5 guri aad samaysid ama 10 ceer aad qaatid that's your business haddiiba adiga aad happy ku tahay waxaaga lama sheegto business aan ka furtay iyo waxaan intaasoo lacag akaanay ugu jirtay iyo balaayaan ahay iyo marka dambe kugu soo laabanaysa dadku waa xaasidin way buuxaan waan ka gudbayaa mahad waxaan rabaa moral police wax la yiraahdo ayaa social media ku jira hadday ahaan lahayd Instagramka hadday ahaan lahayd dhanka Facebook iyo meelaha kale moral police waxaan ka hadlayaa waxay u badan yihiin dad ma aragtay wiilal dhoocil ah ay u badan yihiin inta badan iyo dad waaweyn ay ku jiraan waxay u joogaan kaliya in gabdhaha labista oo dharka traditionka qaata quruxda badan waxay doonaan ay sameeyaan iga jirta choice-kooda iga iskale in qofka aniga waxaan aaminsanahay haddii aan rabo caaw inaan kuwaaniyo aniga Facebook ugu soo cayn maayo ku dhihi maayo ma hadow maxaa shaatiga noocaas u wata ama ookiyaala wata ku oran maayo hoosaan kuu soo gelaya waxaan ku leeyahay ma hadow walaalow waxaas uma bogin dee kaas waa wanaaga laakiin moral police-kii haddii usually aniga waxaan aad uga helaa kuwa moral police-ka gabdhaha committee ku caaya oo yidhaahda naaya diracan maxaad u wadataa adoo roos jooga ama maxaad maaragtay shalmadan u wadataa markaan sii raaco waxa ugu jirto naagihii Mareykanka oo heesay oo kuwa raabkana waa taqaana qaabkay u labistaan dabgaabiyay wataan iyo marka munaafiqnimada dadka isma oga miyaa mise waxa ka keena kaliya waa irrational oo qofka maaragtay isma celin karaan qof markay arkaan iyaga ka qurux badan ama noloshiisa habi ku ah waxay u arkaan threat ama waxay u arkaan in uu dhibaateynayo waxaan soo geliyay Black Panther ninkii dhintay Allah ha u naxariisto yarkii dhintay Afrikaanka ahaa Black Panther masalayay marka qaar dadku way ka falceliyeen si baa looga falceliyay nin waxa ugu daraa yiri gaal yahow gaal ku dhalay marka aniga kaliya ma ahana aabona wuu gaaray raali hada inaan isticmaalo kelmadda dadweynaha daawanayo marka wuxuu yiri maxaad gaalkan ugu ducaynaysaa moogtay page ma fogaan profile-kiisan tagay wuxuu ammaanayaa hindi actor hindi oo caana oo Bollywood ku jira kuwa ugu caansan Salman Khan la yiraahdo ayuu ammaanayaa Salman Khan wuxuu ka xanaaqsan yahay muslimka wuxuu yiri muslimadu haddaad muslim sheeganayso ka guuro Pakistan u guur waa ninka hadalka laga hayo weeye waa wuxuu aad u taageeraa hinduuga waliba kuwan ugu nationalistiga dhinaca midigta xiga ayuu u taageeraa isla markaa saasay u support gareeyaan ninka ayuu ammaanayay marka meel kale ma eegin dee hadalku ii banaan waa inaan block u saaraa waayo haddii uu ahaan lahaa nin dhinaca kala taagan marka Cabdinaasir waxa cajiib loo kelmad baad oran jirtay isma qabato ama ironic waa of course ayaa afka qalaad lagu yiraahdaa sidee bay ku dhacday qofkani inuu xataa si kale u soo jiidan karaa ama aniga ii soo jiidan karaa mahad waxa wanaagsan inaad si kale u qorxiso xataa waan aqbalayaa oo wuxuu noqonaysaa passion oo mahadsanid baan oranayaa waan jeclaanayaa oo kelmadiisaan jeclaanayaa laakiin markuu sidan igu kalifo waxay noqonaysaa un isna meelna ma gaarin anigu qiime ima samaysan laakiin waxaan ka wadaa bulshooy meel walba aad joogtaan qofka ha ku eedaynin waxaad adiguba isticmaasho soo dhawaad Cabdinaasir arrintaas waxaan soo raacsinayaa inkastoo siyaasadaan ahayn laakiin dhanay ka soo galaysa laakiin siyaasad ma ahan arrin habeen dhow 3 habeen hor ka dhacday dhanka iyo social media zoomka ayaa waxaa lagu casuumay shakhsi murashax madaxweyne Soomaali ah oo magaciisa la yiraahdo ambassador Daahir Geelle ayaa waxaa lagu casuumay zoomka lagu casuumay dad badan loo furay waxaa la siiyay passwordkii la siiyay which is a big mistake sababtoo ah hadda caawa baalkan aan iskala hadlayno oo streamer la yiraahdo haddii aan furno ilaa 20-40 qofood aan aqbali karnaa dee haddii gurigaaga
qashin kasta aad u furtid way soo galayaan ku rafaadinayaan waxyaalaha aan la yaabo wuxuu ahaa gabar baa wareysanaysay dadkii baa loo ogolaaday markay soo galeen waxa soo galay midha tobaneeyo caaytamaayo oo ambasadorkii caayna dee caay ma ahan oo xataa siyaasad ma ahan caayna iyo familkiisa caayna ambasadorka waa iska qosle waa dhegaystay dadku waxay lahayn muxuu ku jawaabi doonaa wuxuu ku jawaabay wuxuu horta walaalayaalow isma naqaano u dhahay dadkana waxaa la yidhahdaa barasho horteeda hay nicin bal horta aan isbaranno ibarta ila soo xiriira aan isla hadalno siyaasadda dhegaysta kadibna marka Soomaalidu dad waxa ku jira mataqaanaa maanta Facebooka waxay u maleeyaan in meel computer ay ag fadhiyaan oo waxay doonaan ku sameeyaan qof baa waalidkiis qof soo caaya marka dadka inta waxaan ku waaniyaa yiraahdaa weliga qof intuu meel soo galo looma jawaabo waxaan lama yiraahdo ma aragto qof suu yahay ha waa la tuura qashinka lagu daraa waxa la yiraahdaa category waxa jira category aan sameeyay jira oo daas oo suuliga aan ku galo aan daas Soomaalidu ay suuliga ku galaan suuliga kaga tagaan si wanaagsan kaasoo kale categorygaas la geliyaa marka dhibkaas waxa keenaya waxay tahay moral police ka soo dadkii waa irrationality-na waxay ka imaataa ingiriiska wuxuu yiraahdaa anaga kaga horeyn ma ahaan hadal intuu afkaaga ku jiro amaan u leeyahay qoraalna intuu faraha ku jiro amaan leeyahay way maskaxdi kama shaqeysan qofka irrational ayuu noqday jawaabtu waa ka soo horeysa asoon ka fikirin oo aan oranin hadalkan ama qof dhibaato u keena ama uu ku sameeyo aan oranin gabadhan adaa watee hadda financialka qaybta economiga Mareykanka Congress-kii inuu approve gareeyo ay isku dayeen asalkeeduna hindi ka soo jeedo ayay ku qortay Twitter-ka oo caay ah marka iyadu Hillary Clinton bay ahayd waxay caynaysay progress gaar ahaan Bernie Sanders ayay si xun waa jaahil waa dees kelmado badan bay ku caynaysay markay imika timid oo confirmation loo sameynay kunkii cay baa la soo saaray oo waliba cayde maaha Cabdinaasir oo policy caaya personal shakhsi ayay ku caytamaysay kelmado muslimka ay aad u caynaysay shaqadina way lumisay Congress-ku 51 waa 50-50 bay taagan madaxweyne ku xigeenka ugu shubi lahaa laakiin kii Virginia ayaa yiri maya ma soconayso kelmadahan caydaadii marka wadaagayaal screenshot baa laga qaadaya mar walba ogow haddaad u hayso inaad badbaadayso waliba dhalinyarada annaga 60 jir iyo 50 jir iyo 40 jirku shaqadan uu xamaalka ka xamaalaya kadib waxa way waan iska soconaynaa laakiin markaad 25 jirtid oo ku qor oo laga duubo hadal laga duubo ama laga qaado waxaan hubaa Cabdinaasirna way ga badiyaa IT-da inuu kugu soo laabanayo oo la keenayo haddaad u keeni weydid ma hado cadowgaaga ilaahay kama dhiga cadowgaaga nin xuno يعني ما حد لا يرى whatever it is ayaa tagaya xafiiska shaqada ama tagaya company-ga u shaqeynayso wayna dhacday ma xasuustaa nin Soomaaliyeed Mareykanka bastoolad inuu qaatay yiri haddaanu reer hebelnahay waan idin tooganayna I think inuu may ku hadlayay maxaa ku dhacay shaqadii afreer marka lahjad ayuu ku hadlayay raali hada macnaha una jeedo marka waan rabaa inaan dadka xasuusiyo ka wado marka ninkii shaqadii waa laga eriyay isaguna wuxuu signal buu dirayay ma iska celi dad iska dhicis ma ahayd ma hadii Cabdinaasir buu iska dhixinay shaqadii nimankii uu handadayay way u tageen eega la yiri af Ingiriis ku hadlay Cabdinaasir iyo Soomaali waa irrationality-ga waa laga fiirsadaa mar walba intaan la soo gaarin maad waxaan rabaa hadal muhiima halkan waxa yaala mobile waxay dhihi doonaan iPhone 12 kiibuu show of ka dhigaya waa iPhone 12 wuxuu ahaadaba kayt baa jira oo loogu talagalay sawir la isku qaado mahad ani kulli waxaan garan waayay inaan caaw halkan qolkayga aan jiifto aan istaago oo anoo qaawan sawir aan iska qaado oo telefoonkayga aan gashto horta waa arrin cajiiba ma garan karo maybe dhalinyarada quruxda badan intay iska qaadan iyaga isu bogo nin waxa jira oo ma aragtay oo narcissist lihi jiray oo wuxuu ahaan jiray boqortooyadii wuxuu ka tirsanaan jiray oo Greek narcissist yaa lihi jiray hada dadka narcissist lihi narcissist waxa waa dadka isu bogo ma aragtay oo intay soo galaan bulshada saan ka siiyo oo isu bogo oo quruxdooda horta qofan qurux badan ma arrin ma aaminsan in Soomaaliya qurux badan uu jiro laakiin ma sameyn karo in ma aragtay aan narcissist ah noqdo narcissist-ki waa isu bogay markii dambe wuxuu arkay asoo meel maray iyo muraayad iska arkay muraayadii markuu isku arkay waa eegay meeshay ka bilaabatay hadalka markii dambena hooyadiisu guursaday ninkaas waxay ahayd adiga dhowr kun sano ka hor ahayd oo waxay ka dhacday Greek waa narcissist marka ma hadow intaad isqaawisid sawir aad qaadid
aad gashatid bahalkan telefoonkaada aad gashatid marka dambe lagaa dafo hadda xaafadan oo London aan deganahay waxa ku qoran waan aragtay waad ka aragtay YouTube-ka meel walba iska ilaaliya wiilal yar yar oo mootooyin wata waxa jira oo telefoon dadka dafaa jira aad iyo aad adoo mahdow qaawan ilaahayna ma tusee ilaahan ka magan galnay ama anoo qaawan oo telefoon inta aan isaga qaaday telefoon halkan ii yaala oo la iga xaday ama la iga jabsaday oo anoo meeshan saan u taagan sababta reason ma ii sheegi kartaa waan bagartay bil yiraahday wiil qaawan ba Facebook gabar wuxuu ugu diray telefoonkeeda WhatsApp-keeda ama gabar qaawan ba waxas waaba logic way socon kartaa laakiin dadka yiraahdo telefoonkayga waxa ay u kaydsanaa anoo dharaamaysan bay yiraahdaan af Soomaaliga maxaa la soo dharaamiyaa bal ii sheeg maxaa la soo qaawiyaa iyo anigoo private-kayga ku jiray marka haddii aad aragtaan ka digtoonaada cabdinaasirow horta qofku waa shaqsi bani aadamku anu waan qabaa hadduu inuu suuligiisa tago wax inuu hadduu is eego ama nabar halkan uga yaallo ama dhabarka uga yaallo ama dee meelun uga yaallo in uu markaa iska masaxo waayo iminka way fududahay sida dee laysku jabsado oo mobile lagaa jabsado ama lagaa xado dad baa waxay ku dacwoodaan cabdinaasirow baasur buu leeyahay lama jabsan karo maxaa ka jira taa horta mahdow ilaahay hadduu yidhaahdo dhalinyaro badan ayaa soo martay oo sologroups.com shabakadan wax ka bar waa taqaanaa oo 14 sano IT aan barayay waxyaalaha igu farxad badan waxay tahay markaan tago anywhere Soomaaliya joogto yiraahdaan macallin Cabdinaasir erigaas aad u farxad geliyaa hadda waxaan rabaa berrito inaan Facebookan hadda aan ka hadlayo aan soo dhigo sida fudud ee dadka Facebookooda looga jabsado waxay leeyihiin password baa ku xiran bahalkaaba ii soo dhaca balaayo iyo sida uga hortagaan marka technology-ga qofkii sameeyey nin baa ka sii qatarsan oo fujin kara wax walba oo jabsan kara hadda meel xamarweyne ku taal waxaa la ii sheegay Apple ID-ga FBI ay furi waayeen wiilal oo reer xamarweyne furaa la yiri which I believe it marka telefoon aa wax ku duubtay horta diritaanka videoga si kasta u kulaaw kuleylka gabar baad u kulushahay ama wiil baad u kulushahay gabar tahay wixii gala internetka ama international netka furan wixii gala gacan bay ka baxeen waa hadal intuu ammaan yahay ama lacag inta jeebkaada ku jirto marka hal mar haddii sawir ama video uu kaa baxo waa kuu dhammaatay ama baasur ha ku xirnaado ama yaan ku xirnaanin qofka mis doonaysaan habi mis ku tihiin adult ma tihiin waxa hartaan sameeya kali jirtaa dembigiini waxa hartaan sameeya meesha hartaan ku kulma baag isla taga isla sheekaysta isku qosla laakiin qof baa Alaska degan anna waxaan deganahay dhuuso marreebaan deganahay dhar kugu dhegan ii soo dir iyo sawir adoo kala qalacan ii soo dir way kugu soo laabanaysaa weli waxay ku soo laabataa ma ahan in qof kale uu jabsado vast majority dadka lagu dhibaateeyo waa dadka kugu dhow xaaskaaga ama odaygaaga wiilka saaxiibka leeyahay gabadha saaxiibta lahayd wiil aad ka tagtay ama aad ka tagin meel walba ka dhacdaa caddaanhay ku dhacdaa Ingiriiska hadda case baan ku arkay journalka shalay meel bay ku dhacdaa Egypt baa kii ku dhacday nin Egyptian gabar qurux badan markii dambana xaaskiisii sawiradiina soo gudbiyay ajiib way kugu dhacaysaa waxay u dhacaysaa dadku isku mid maahan dad waxaa jira khiyaara xataa haddii annagu gabar waan jeclaan karnaa waana jeclaana waa naga tagtay ayaamaan barkimaha ku oynaa kadibna waa iska samarnaa laakiin gabadhii haddaan ciil aawii aad sawiro aad ka heshid aad soo dhigtid banaanka rag badan baa sameeya maalin walbaan arkaa aniga everyday aan arkaa maha waqtigii gabagabuu marayaa dhowr su'aalan waan u hartay especially tii cashada waxaan rabaa arrinta mar walba aan ku soo darno galabtadan ayay haddana dhacday arrinteeni nimankii galbeedka Afrika ee nimanka Soomaalida macaawis ka bixin jiray galabta haddana nin bay ku dhacday Soomaaliya oo Soomaaliya ku sugan ma sheegay meesha ku sugan yahay waaya ninkii odayga ahaa email uu ii soo diray ma sheegayno ninkii dharkaa laga siibay macaawisaa laga siibay alfalaaxa laga siibay shaatigaa laga siibay funaanadii garankeeda ee Soomaalida gashata ee garanka sana laga siibay waxaa la isku qabtay kor iyo hoos la isku qabtay maaha wajigiisi macal wajigiisa la isku qabtay xogaa internetka ay wareeganaya wajigiisa la isku qabtay macal wajigiisa la isku qabtay ninkii maxaan sameeyo yiri ka waran videoga ma arkin wax badhay male waan u sheegay wuxuu sameeyay email aan u dir waxa sameeyay video aan daawo sidii sameeyay marka wax mar kale waxaan rabaa dadka inaa xasuusid arrintan si fiican ayaad uga warqabtaa bal dadka xasuusi arrintan nimanka reer galbe West Africa ay sameeyaan Soomaalida ay ku sameeyaan dad kale ay ku sameeyaan Soomaalida u badan tahay
cabdinaasarow waa waxyaalo fara badan oo dee dhinacaagan inta badan ka dheehday iyo haddaad youtube-ka gashaan meelo badanna waad helaysaan soomaaliyay waxaa imika bilaabmay in la shaqaalaysiiyo weliba hablo soomaaliyeed oo afkaaga soomaaliya kugula hadlaya iyo weliba siduu cabdinaasir yiri bono websiteka boonada ama loo yaqaano nooca ayaa lasoo qaadanayaa kadibna waxay saarayaan dhinac markaa qof sanam ah oo adigoo aad qof moodid ayaa kula hadlaya marka dhibta jirta cabdinaasirna wuu noo sii fasiri doonaa maadaama aad sawirka eegaysid yani qof bani aadan baa tahay waa dareemaad leedahay oo bictureka aad eegaysid hadalka waad ilaaweysaa marka bicturekaad ku mashquulaysaa waad soo dhowaanaysaa adigoo markaa maqan oo maqana joogana ah kadibna waxaa lagu leeyahay haya haddaad doonaysa inaan sii soconno dee adiguna markaa waxaan doonayaa dalabadeennaba inaan ishabayno marka qofkii markuu gaaro meel ama la yaraado whatever it is maaragtay aan afka qalaad buu ku sheegay ayuu soo wejigaaga natus quruxda wejigaaga korkaaga hoostaada waxoo dhan marka lagaa duubo oo intaasoo dhan lagaa duubto ayaa weliba lagu macsalaamaynayaa nus saac kadib waxaa lagu soo dirayaa videogaagii lagu leeyahay $6,000 $7,000 $10,000 haddii kale whatsappkii familigaagana hore waa loo hayaa waa loo dirayaa qof kastoo facebook kugula jirana waa loo dirayaa marka waxay noqonaysaa inaad 10,000 soo hesho ma awoodaa 10,000 waxaa kaaga sii daran 50 sannadood way haynayaan mar alla markay bakhiilaanba ay ku arkaan inaad ilowday ood xoogaa kor u soo kacdaa lagu leeyahay maantana waa tan soo soco marka waxaad uga hortegi kartaa inaad markaa macawista siduu cabdinaasir yiri lagaa siibin ood haddaad doonaysid aday ku jirtaa daawashadaada iyo waxaad daawanayso laakiin inaanan isku daydo inaan wejigaagan baasboorka iyo macawistaba lagaa siibin waayo dadku way ku daaleen sideeda loogu sheegaa haddaad tiraahdo ilaahay ka baqiyo halkan ay martay iyo taa waxa weeye halkaasaanu dhigaynaa imika waxaan si toosa ayaanu u gelaynaa saad u dareento waayo dadku ilaahay ka baq iyo allaha u naxariistadii waxay u noqotayba saan dareemay kelmaddan allaha u naxariista hebel waan geli doonaa mar dhowe oo markaan koronahan ka hadlayo taas inaad xaggaa iska dhigto u bareer wejigaaga iyo familigaaga iyo mustaqbalkaagaba soo dhaw cabdinaasir absolutely waa ra'yi aad u wanaagsan dadkii waa la rafaadiyey wiilkan galabta ila soo xiriiray runtii aadan oga naxay waa la rafaadiyey nin wanaagsan intaan ka aqaano aan ka arkay morally aniga moral police ma ihi intaan soo fadhi social media oran maayo waxaas maxaa u samaysay qofka wax walba asaa ka mas-uula qofka haddaad waanin kartid hoosaa loo galaa laakiin intaan facebook soo fadhiisto oran maayo hebel jaamaci heblaayo caasho hebel waxaan maxay u samaysay qof kale ma dhihi karo moral police ayaa jira oo social media ku jira oo arrimahooda gala marka arrintan waqtigii 5 daqiiqo ayaan hortay covid-kana waan aragnay cabdinaasir waan kaa dhex galo maadaama adiguna aad asbuucii dhoweydna aad taagtay waxaan doonayaa adigana ingiriiska waxaa nagu maqaalaa cabdinaasir dadkii waddankii u tegaya ee ingiriiska ka dhoofaya inay diblomatic shahaado been ah oo sankam la iska gelinayo waxaan inay ka baqeen ingiriiskayna u badan yihiin sidaad adiguba asbuucii hore norway noo aad taagtaan doonayaa bal inaan iska kaa celinno cabdinaasirow ixtiraamka dhakhtar hindi ah ama bangaladesh oo lacag yar la siinayo shahaado kuu qoro ama lasoo qaadanayo ma jirtaa oo dadkii xanuunkan u badan ee laga qaaday waxaa la sheegayaa qurba joogtii carartay ood cabdinaasir ka mid yahay inaad u keenteen waddankii ingiriiskan oo aad joogtidna aad mas-uul ka tihiin maxaa beentan adigoo nabadgelyo ku geli kara oo weliba bilaash ku yahay hindi sankaa layga gelinayaa keliya oo caafimaadkaaga iminka emotion baa noqday ee dadkii masaakiintii waddankii ma se jiraa cabdinaasir immigrationkiinu dee waa si kastay u dadaalayaan gaar ahaan magaalada muqdisho way kala hargeysa waxaad moodaa xoogaa inay strong tahay immigrationka adaa iga badiya muqdisho anuu ma tegin waan ku khaldanahay waxaan rabaa inaa isaxdo waa sidee immigrationku ma controlaan si adag mise sidaa warqadda jaantaan roga bay noqotaa soo dhawo cabdinaasirow norway aniga reer norway waana tegay waan aqaana ma ataagareynine soomaalida waxay u aragtaa runta haddii la sheego soomaalida waxay tiraa runta ragga kama naxayso iyaga qaar baa ila socon oo u hadlaya moogtay soco absolutely teeda kale waxaa laydinku ogyahay reer norway haddaad tihiin with respect in aad isbasaastaan waaba history ninkii xabiib la oran jiray dhibaatada ku dhacdo kale iyo dad badan ani ila soo xiriirin oo facebookgoodii anaa kuu qarsan baa cabdinaasir owta marka nothing personal arrintan covid-ka aan kuu sheegayo aniga
shahaadada ka hadal horta shahaadadan doonaya inaad gasho dhowr jeer ayaan iska qaaday horta runtaan kuu sheegay dhowr jeer ayaan iska qaaday weligeyna horta waxaan ku tusayaa evidence waxaan filaya inuu meesha xataa i yeelo dhowr jeer ayaan waxaan iska qaaday horta baalkan covidkaan iska qaaday xataa iska daaye nasiib waxaan ku leeyahay halkan uu i yeela xataa iska daaye waxaad u maraysaan waxaad arkaysaan hadda Puntland ayaad arkaysaan Somali state of Puntland waxaan filaya in reflectionkaasi waa ka ah mujeedaan Puntland anoo garowe jooga shirka waxaan ka qayb galaynay meesha ka socda heritage-ka cid galaysa ma laayo qof loo sameeyna ma jirto waana la kaxeeyey sanka waxaan la gelay bahal oo wallahi nafta kaa baxaysa wow ma sha Allah markii dambana markii waxaan filayaa shanaad aan iska qaaday inay tahay Istanbul Roger baan iska qaaday London Hamr isbitaalkan Giacomo di Martino la yiraahdo by the way Soomaalida waxaan rabaa inay yiraahdo isbitaalka Martino ayaa la yiraahdaa Martino ma aan wala af Soomaali Martino ayaa la yiraahdaa laga qaaday marka dadka dhahayaan dhibka jira fiiri maad immigration waxaan ka hadlayaa Cabdinaasir ha ii dambeeyo Soomaalida jiraan Soomaali badan oo lacagtana ka cararaya oo yar beesteenka ah isla markaana diisanka in wax laga geliyo laakiin dhibka jira ma taqaana waxa laga yaabaa airportka ay ka duulayaan Heathrow kale haddii qof oo eegaya uu saan u arko uu yiraahdo baashan reference u raadinaya wuxuu luminayaa flightkiisii hotelku tagi lahaa xataa in la xiro ay u badan tahay ku dhibaatay marka Soomaali hadaan nahay irrational ayaan kama fikirna waxaan sameynaa waxa lagu leeyahay ma hadow maxaa kaaga Hindiya ugu tagaysaa $80 ama $80 u siinaysaa adiga sameeyay lagu leeyahay immigrationka Soomaaliya muqdisho xalayaan ka hadlay dadku waxay u maleeyaan Soomaalidii 10 sano ka hor ay u maleeyaan ma ahan maanta xalayna waa sheegay mar badan waa sheegay haddii aad tiraahdo Cabdinaasir $10,000 ayaan kuu soo dhiibaya passport Soomaali iyo Soomaaliya kuma sameyn karo waa dhageysanay barnaamijka passportka Soomaaliga processor loo mara marka ka degitaanka meesha laga dego horta waaxda caafimaadka wasaaradda ayaa qaabilsan immigrationka ma qaabilsana coronavirus ma qaabilsan shaqo ku mare meesha marka laga soo baxaya hadda dad baa waxaan ku arkay airportka iyagoo Turki iyo Ethiopia iyo meel u socda laga celiyo loo diiday diyaaradi anaa marqaati ka ahaa maxay sameeyaan certificate fake ayaan wataa waxaan safkaan galayaa tikitka waxa la leeyahay intaanan checking ku sameyn waaxda caafimaadka airport ku tag gabdhi wiilala fadhiya waa u tagaysaa reference ay fiirinayaan waa genuine waa sax waxa lagu dhufanayaa stamkaasi eegayaan laakiin maalintii ka waayeen waxay ku leeyihiin raalli ahaa maalin kala soo noqo ama hadii doona booliska lagu dhiibaya marka Soomaaliya sidii aad ku ogaan jirtay oo hays dhaxyaacda iyo passport laga sameysanayaa bakaaraha iyo sheekooyinka way dhamaadeen I suppose Hargeysa wada ka sii adag tahay hadii loo fiiriyo labada magaalo ugu waaweyn wada ka sii adag tahay oo Hargeysa qofka xataa meel qaad ka duulo hotel karantiil ahaan loo geliyo taas wax loo baahan laakiin is too late hadda wadankii bahalkii ayaa faraha ku haya waaya covid kan labada nooc ee ugu daran hadda kan South African UK Soomaali ayaa meesha geysay qof kale ma geenin waxaad u jeedaa waa kan annagu waxaan reer magaal ku nahay waa kan waxaad u jeedaa insha Allah Soomaaliya geysay mahad Soomaalidii UK yaa geysay anigu waxaan ka degay 4 Maarso 2020 ayaan ka degay 29 Maarsna covid ay ku dhacay ilaahina waa iga badbaadiyay laakiin dadkii badnaa markii dambe yimaaday wadankii way keeneen qaasatan South Africa way keeneen wadankiina farakuro iyo ku haya habeen iyo maalin dadkeeni especially odayaasheeni way dhamaadeen mahad waliba Cabdinaasir one second dadku usbuucan Facebook waa usbuucii ugu dhimashada badnaa runtii markaan furaba magaalada Muqdisho Allah u naxariisto Allah oo waliba dad caana iyo intaan la aqoonba Cabdinaasir waxaan bulshada Soomaaliyeed ka codsanaynaa bulshooy gaar ahaan magaalada Muqdisho wax dhiba male gacmaha inaad maydhaan inaad soo Cabdinaasir salaantan aad salaamaysaan iyo inaad kala yara durugtaan waxaad arkaysaa Cabdinaasir nin xiran saddex baa horta bal ii fasir halkaasay ku hayaan macnaha halkan loogu haynaya maxay tahay yani ixtiraam darradaas garan waaya nimba soo qaadanaya hadduu san xirinayn Cabdinaasir waa sidan qof walba oo Soomaali waaya gacmahana mahad waa kan marka waxaan doonayaa dadka baashan soo qabsanaysa waa kan mahad si fiican ila soco gudaha fiir gacmaha fiir waxa la doonayaa qof walba Soomaali jeermiska uu dilayaa sidan aad iyo aad meeshan u kala cidiyahana waad ka jaraysaa kale mahad ugu muhiimsan sankan la taabanayo waxa ka muhiimsan tissue inaad ku taabto qof baa Soomaali baad arkaysaa labadaba intuu geliyo ayuu san leeyahay
ding 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 uu leeyahay saan markuu yaro saan u eegay markaasuu leeyahay jak jak markaasuu leeyahay salaamu calaykum salaanta muslimka maxaad u diidaysaa buu leeyahay markaas warhana salaamayna leenahay sanaa u salaamaysa ama waa ka cararaysaa intaasaa noogu haato inay maaragtay barnaamijkan weli mar kasta cabdinaasir ood ku soo qaadanayso asbuuc walba ama siyaasad ka hadlayso ama qofku ha dhibsado ama yuu dhibsanin intaad noo tiri un xasuusi mar walba waayo galkan la saaraya anu qiime iima sameeyo waa wax laga xishooda wasiir meel inuu soo istaagay halkan u saaran yahay halkana la wada taagan yahay maxaa dhacay mataqaanaa cartoon oo lagu soo qoray waddanka ingiriiska timeska lagu soo qoray ayaa wuxuu ahaa dee halkan kama sheegi kara qaabku ahaa dadka saan u saartay arkeen moogta halkan saan u saartay cajiib la weyn markay arkeen waxaa la soo sawiray nin nigis wata oo bahalkiisa muuska yaraa banaanka saan loo soo saaray wasem markaas la yiri same thing somaa waa same thing adoo nigis gashay bahalkaaga muuskaagi banaanka soo saaray iyo kan farqi uma dhexeeyo marka meesha ugu darna waa halkan bahalkan at least geesan waa ka furan yahay laakiin ma ahan kan oo holofka oo sidaan kugu jira ma ahan bahalka waa inuu kugu dheganaada sidaan kugu ahaa dheganaanta sidaan fiiri u ahaadaa mahad walaalo barnaamijka ugu dheeraaday dadkana ma rabo inaan dhibsadaan heesiina waan kusoo xiraynaa caawa maxaa ku cashaysa mahadow hilib iyo baasto iyo shaah oo sokor ku buuxdo oo aan hadda kahor kacba magaaladeeda godin labe waa shaahay ugu sokorta badnaa intaan noolaa noloshayda aan kacba godin labe caawa maxaad ku cashaysa bulshada soomaaliyeeday waxaan isku dayaynaa qaarkeen inta dee garanaysa ee doonaysa inay yaraa ilaahay caafimaad hana wada siiyo inta dhimatayna allah u naxariisto dad badan oo maanta sawir baan soo geliyey 1982gii aan ku wada galnay magaalada hargeysa cabdiqaadir jubbaa ka mid ah saaxiibkay faysal oo aan maanta naga hooseeya ka mid ah markaan soo xasuustay shalay kalaan galnay weli ma ilaawo waa 1982gii marka waxaan ka wadaa cabdinaasirow maanta cashadaydu waxa weeye brocoli waa brocoli oon wax cusbo yar badhar yaroo meel dheer ah un weeye iyo dabka biyaha waad gelinaya waan ka saaraysaa kaas iyo waa intaa halkanna waxa yaala waa taqaanaa baradhada macaan sweet potato afka qalaadna lagu yiraahdo waxaan ku daray xabad yar oo toona iyo xabad sanjibiil ama jinja aad u taqaanaa ama ingvar afka norwejiga lagu yiraahdo intaasaan ku daray iyo galley yar baa ku jira haddaad arkaysid cabdinaasir maasha allah waa intaa wax kale cabdinaasirow weliba imika dhibaata igu haysa ballankaygu wuxuu ahaa inaan 8 inta ka horeeya cuno laakiin maadaama khamiis tahay oo caawinaya cabdinaasir laaf soo gelayo dib baan u dhigtay wax igaba dhibi mayso waan ku seexan karaa imika macaanka waan iska daynaya ee baradhada ah midda kale cabdinaasir waan bobsinaya waxaa ku jira sweet potato nature ah haddaad sokortii doonaysid macaankii wuu ku jiraa maxaa yeelay meeshii aad sokorta ka cunaysid isagaa macaan inkastoo yahay macaan nature ah inaad ku seexatana looma baahna laakiin haddaad cayilka iyo waxaan oo dhan waxaa ka hortegaya brocoliga cabdinaasir soo xir waxaan rabnaa samarka ilaahay hadduu yidhaahdo inaan casuuno dul yar ninkaasna waa nin cambuulo iyo muufo iyo bisteki iyo hilib iyo wax walba iyo muus isku cuno ma laga yaabo waxaan noo aqbalaya haddii oo samarka aan ku casuuno magaalada Oslo u malayn maayo inuu Oslo imanayo hadduu maqlo markaa waxaanu u diraynaa cambuuladii iyo muuskii iyo wixii isku jajaban markuu yimaado se masaskii aan isla naqaanay baan siinaynaa maasha allah daawadayaal waan ka cudur daaranaynaa 5 daqiiqo ayaan sii dhaafnay insha allah khamiis soo socoto ayaa noo balanaa mar walba aniga mahad waxaan idin leenahay bahalkan noloshaada ayuu badbaadinayaa hala socdo waa idin dhaafaynaa aad u mahadsantihiin noo dhegaysateen wixii dhaliil ah mar walba diyaar ayaan u nahay wixii taageero ah iyo waxaan ka hadli karnana noo soo dira videogan markuu dhammaadana waxaad ka helaysaan mahad maxaa la yidhahdaa youtube kay ka helayaan waa mahad cabdulle turbashash family ayaad ka helaysaan mahad cabdulle waa mahadsantihiin waxaana aad u mahadsan cali naaji oo isna bartiisa haddaad gashaan in yaroo haldoorka aabanimada ka sheekeynayay oo isna xagga aan isweydaarsanay cali naaji aad buu mahadsan cali naajina thank you aad u mahadsantihiin asxaabta qiimaha iyo qaayaha leh insha allah wixii su'aalah noo soo dira waan ka hadlaynaa wax walba oo ku saabsan arrimaha bulshada ku soo dhawaada heesihii asbuucan aan u xuray mahad 5 fanaan ilaahay ha u naxariistay oo Soomaaliya aad looga jeclaa waqtigoodina ahaa waqtid ay aad ugu raaxayeen ku soo dhawaada
dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waqalkii daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waqalkii daruurtay hohay walumo hafad baanaho hirbelaacaye hafad baanaho hirbelaacaye hohay walumo hafad baanaho hirbelaacaye hafad baanaho hirbelaacaye inaanahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray an kala hobsado inaanahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray an kala hobsado عندما اقتعي تدي سبع كوت كدادتي وحي اوغودهي مركي aan dulimi tan dunida rabay iyadoo dog dhex jiifto daawanaysa ubaxo iyadoo dog dhex jiifto daawanaysa ubaxo sawraaxada macdayo durbaa garayski furaatayo sidayse timi xubnahaaga qoraaniyo qowl baxay la mudiyey xubnahaaga qoraaniyo labadaada qarba labadaada qarba qalbigaygu raacay labadaada qarba qalbigaygu raacay hanaan socodka laafyaha hagarlihii wax qabashada hindiisihii faalada uhalceliiska shiikada hanaan socodka laafyaha hagarlihii wax qabashada hindiisihii faalada uhalceliiska shiikada